الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا. ساقدي دحي بشي لويتنا سدحي توانكيدا 2003 jiinka webiga Tigris ee dalka Ciraaq jawigu waa mid kacsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Task Force 121 ayaa dhexda u xirtay fulinta howlgal aan caadi ahayn 235 maalmood ah ninkii tawanaya sana ahaa calansidaha dunida Carabta haddana noqday qofka loogu raadin badan yahay dalka Ciraaq oo aan la ogeyn meel uu jaan cirib dhigay waxa uu ku guuleystay inuu ka dhuunto indhaha sirdoonka ugu awoodda badan dunida laakiin caawa baadi goobkaas ma ku soo dhamaan doono qasiyadii quruxda badnaa ee lagu yaqaanay balse wuxuu ku dhow yahay in lagu soo afjaro dhoobo ah oo ku dhex yaala beer cidla ah maanta waxaan ka sheekayn doonaa qaabkee loo soo qabtay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein iyo sirta halka uu ku sugnaa iibsaday والله نقول صوبير وقال كان لايك صار أركتدا هذا نقوله هذا كومنتيجا حلقة الدنيا أي عندها كويس الليس كسراكيش وأود بدن الحكم كي عراق سركال درجة هان هوسية وكتر سنسردون كمرايكنكا ونقابل سنة ورئيسية إريكس مادوكس يا مسكح لي سوى حاكو صودع حقيقة إن سادام جنرال هذا مدحتوية أين أوجين هلك ومنايو مادوكس wuxuu bedelay dariiqadii baaritaanka isagoo ku dooday Saddam inuusan aaminaynin siyaasiyiinta wuxuu aaminayaa dadka aan isha qabanin ee raadintoodu aysan micno weyn ku fadhiyin kuwaas oo ah darawalada kariyaasha cuntada iyo ilaaladiisa gaarka ah isla markiiba isha sirdoonka waxay u wareegatay qoyska al-Musallad iyo nin magaciisa uusan ku jirin liiska dadka la raadinayo Maxamed Ibrahim ninkii hayay furaha xogta goobtu isku qarinayo Saddam Hussein baado goobku wuxuu noqday mid xamaasad leh markii Maddox uu ogaaday in Maxamed Ibrahim ahaa nin aad u jecel soo dawashada kalluunka isla markaasna sirdoonku ay heleen macluumaad sheegaya in kariyihii gaarka ah ee cuntada ee Saddam la weydiistay inuu diyaariyo kalluunka caanka ah ee masguuf oo ahaa cuntada uu Saddam aad u jecel yahay xiriirkaas fudud ayaa xaqiijiyay in Ibrahim uusan ahayn kaliya nin dhuumanaya balse uu ahaa ninkii quudinayay madaxweynihii hore ee Ciraaq saacado ka hor inta uusan Maddox ka duulin Ciraaq weerar ka dhacay Baghdad ayaa horseeday in gacanta lagu dhigo koox rag ah kuwaas oo ku jiro Maxamed Ibrahim kadib markii la saaray cadaadis xooggan cagajugleen iyo balanqaadyo dhaqaale iyo amni Ibrahim ayaa ugu dambeyn ogolaaday inuu ciidan ku horseedo beer ku taala tuulada Duur waxay ahayd isla beertii uu Saddam ku dhuuntay sanadkii 1959 kadib markii uu ku fashilmay isku day dil oo uu doonay inuu ku khaarijiyo hogaamiyihii xilligaas ee Ciraaq markii ciidamadu gaareen beerta ma jirin wax muuqda waxay u ekayd beer caadi ah ilaa Maxamed Ibrahim uu kor istaagay meel qashin yaallo oo dhow geed timir ah markii qashinkii laga qaaday waxaa soo baxay god ciriiri ah oo u eg godka caarada waa god hoos u qodan oo hal qof kaliya qaada taas oo leh tuubo caag ah oo hawo uga soo gasha askari ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa damacay inuu bam gacmeed ku tuuro godka dhexdiisa balse markii waxaa kor uga soo baxay laba gacmood waxaa soo baxay nin wajigiisu duruufaysan yahay gad weyn leh taasoo aan u ekayn hogaamiyihii weynaa ee lagu yeeri jiray libaaxa Carabta isagoo ku hadlaya luqadda Ingiriiska wuxuu yiri anigu waxaan ahay Saddam Hussein madaxweynihii Ciraaq waxaan diyaar u ahay wada hadal jawaabtii askariga waxay ahayd mid kooban oo qallafsan madaxweyne Bush salaan ayuu ku soo diray Ladies and gentlemen, we got him. Saddam waxaa lala helay qori noociisu yahay Glock 18
iyo lacag gaaraysa $750,000 balse ma uusan samayn wax iska caabin ah. muuqaaladii laga baahiyey isagoo ilkaha iyo timaha laga baarayo waxay ahaayeen kuwo loogu talagalay in lagu jebiyo haybaddii uu dadka ku dhex lahaa. inkastoo Saddam la xukumay laga dardalay bishii 12aad 2006, su-aasha isweydiinta mudan ayaa weli waxay tahay daldalaadii Saddam ma keentay nabaddii la filayay mise soo qabashadiisa waxay albaabada u furtay foodo, dagaalo sokeeye iyo soo bixitaanka kooxda ISIS.